magaciisa magu ceenin bo magaciisa maysa ugu ceenin come take the body ay leeyihin والله مرة مريري عمل إلنا قطوة أميني ومقطع unbelievable عمل إلنا إنا ريونو إنا نجيفو إنا نتاجنا إنا صعد واحد واكل أقوى عليه مرة وحدها واي تبود وقسيبتين عندها مقطع مرة وحدها ساسا كوسمين وحوما ليس إنا هرتي إنا وحكوا يلا عمل حوجا إنا سكون أحفر مبوا وصوب حيلا بركة عتوك بسم الله عندها وكس وصوتك سأسوس عند جروي أسوق قلب مال كلام هذين hadda akoonkiisa wixiisma walaalihiisa wacay gabadha dhalatay oo hooyadiis aabiis dhalan la sheegay maantaba aan tusay oo taleefonka ka tusay maalin walba every day way isoo waceysay video call iyada ku tusay iyadaasi gooni u tusay bas iyadaasi gooni u tusay dami dhaaf allah uga dhigo wallahi sheekh axmed xanuun waa arkay xanuun intuu qof bin aadan arki lahaa wuu arka wallahi الله أكبر ما والله waxa arjeenay waxa way kaliya xanuunka maalmahaas oo xanuunsana ee uu arkay inuu ilaahay dambigiisa dhan ku dhaqo oo soo nadiif ah oo tago oo kar tago shalay wixii uu ku soo celcelinay waxa u maleysaa hadal walba asaga uu dhahay in aniga baraarujin noo tahay hadal walba uu dhahay in aniga baraarujin noo tahay adduunyada way macaan tahay laakiin mala joogahay adduunyada way macaan tahay laakiin mala joogo oo ku celcelinay maalinka kasii horeysay ee ahayd khamiisti wuxuu dhahay wax yar kadib wuxuu leeyahay aruush oo leeyahay uu aamusaa marka usoo dhawaad hee ilaa hadal adho qabrigaa lii tusi oo ku celcelinay wallahi meed waa kama been abuuranay sheekh axmed meedka wuxuu leeyahay qabrigaa lii tusi haddaa markaas aan macnaha tusi lahaa ama walaalihiisi dadkiisa markaas arki lahaayeen way sii qaracmi lahaayeen bal u kaadi isdhaay u kaadi arrintiis intay meel u dhacayso آمين يا رب أنا وعايز ده وحي حنون إيو وحي على الحمى أدلها كوكو كوبنادان إسكتشو مركلي سووا علي ويدي سيدو كرونيا لين ده سيدو كرونيا هذا إنا ما أنت كسي دمبس إنه سي إلقاء مركا أركاي وجيجي سلام بدت إنها تسوى ديدا وكجوجي gaariya wadaa meesha amin والله هدا marka xafiiska tagtid aa ku soo qaban karo oo aa u ducee karno oon xitaa geeri is xasuusi karno oo ku jiri lahaa life-ka oo ku sugi lahaa 9 minutes hay allah ku xifdiyo nolosha inaysa waxba ahayn inay mataac tahay oo in alaakhirati daarul qaraar xitaa dadka u sheegno dhalinyarada u sheegno anagoo nafteena ka bilaabayno wax ugu weyn la is xasuusin inay taas tahay oo ku sugayna markii lagu leeyahay adduunka saaxiib wanaagsan sameyso ama markii lagu leeyahay adduunka walaal wanaagsan sameyso waxaa ka mid ah sheekh axmed abdiraxmaan axmed alyamaani wallahi maalin kastoo isoo wacay daqiiqado isoo wacay saacado isoo wacay wiilka xaaladiisa iga wareysanay dad badanna way jiraan oo saas oo kale ah oo wiilka xaaladiisa xanuun badan ay ku haysa hadda wuxuu leeyahay goormaan soo galna aan u duceynaa hadduu noo imaanaa oo u duceynaa
waxaa kalaa la yaabay haddaa gurigii soo galo iyo haddaa gaariga ku jiro iyo dharka aawad haddaa iska bedelo ama haddaa gishtabo daawada isbitaalka kasoo carfayso weliba daawooyinka qaaska asaga la siinaya kasoo carfayo jaakadiidaasaan dhaho saantaa dhaho daawadiisu inta joogto waxaa u qabtaa ina asaga dul taagna ina isbitaalka joogo may beriyaa duugeynaa beri walaa dharkayga dhan gaariga meel kasta aad joogo waxaa waaye daawadiisaa kasoo carfayso gacmihii haddaasaan dhaho si kasta u dhaqo daawadiisa caadi ah aa carfina me ani ooyin mi qabanaysa ooyinteyda waa soo dhamaysteen ilmihiisa insha allah intaan noolahay ee naf igu jirto caafimaad qabo intaan noolahay ee naf igu jirto caafimaad aan qabo waa ka warqabayna insha allah guuleed kaale guuleed isoo qabo dhow guuleed kaale oo kuu soo dira guuleed soo qabso guuleed oo kuu soo dira ma aragtaa ogow markay nafta kaa baxdo adduunyada waxaa lagugu dhahaa hebel maxaa ka haray hebel maxaa ka haray adduunkaa lagugu dhahaa caruush oo dhinta okay caruush maxaa ka haray laakiin qabriga marka lagu geeyo waxay leeyihin malaa'igta waxay isleeyihiin waxay dhahaya malaa'igta caruush maxaa ka soo horeeyey caruush maxaa ka soo horeeyey ee malaa'igta ku sheekeysanayaan wixii kaa horeeyey unaa ku anfacayo wixii kaa haray wax macno gooli ma kuu yeelays guuleed oo kusoo qabanayaa ma soo galaysid okay requestigaa furaa sug requestii ma furay hadda requestii ma furna umaleyna ana tiktok waa isaga jirnaa limaan inaan si fiican u naqaan ma umaleysiin hadda ma furan yahay wallahi ana waa liga aqoon badan yahaba bismillah waa furan yahay guuleed haa kaale guuleed assalaamu calaykum وعليكم السلام عروش سوون فيعني fiicanahay guuleed horta waxaa rabaa guuleedo waxaa rabaa ka hor intaan hadalka ku siinin dadkan inaan ku baraa rabaa walaalaha meesha ku jiro wiilkan guuleed ee meesha saaran ninka walaalka ah ee marxuumka ee geeriyooday maxamed okay guuleed mii maqashaa guuleed marna inaad degoo sida umaleya marna aa saaran tahay macnaha had mii maqashaa aad waa ku maqlaya carish okay guuleed waxaa rabaa inaan ii sheego oo aan ii baro wiilka marxuumka ah ee geeriyooday ee maanta anaga dhan naga wada hooseeyo ninkan walaalka ah qabiilna kama dhexaynin shaqana kalama dhexaynin soomaalida waxyaalaha isku caawisana kalama dhexaynin nin walaal oo wuxuu ahaa garab istaagi jiray kabar qabi jiray ilmihiisa iyo asaga wixii markaa uu awooday ee awooddiis ahne ku garab istaagi jiray guuleed ase lambarkii meel uu ka soo helo ma ogi asaa isoo raadi isoo wacay step by step oona xaaladiisa weydii jiray mar walbana wuxuu dhihi jiray aboo wareysa bal wiilka ma i xasuusayaa ma i yaqaanaa ilaahay wuxuu qadaray shalay maahane doraad inaa video call inaa inta ka soo wac guuleed wiilka tusa aan wareysta aan dhaho maxamed seetaa ma fiican tahaa guuleed mataqaanaa oo dhahay haa guuleed walaalkay waay guuleed intuu ku nool yahay maraykan uu ku nool yahay haye
sidee guuleed wax ku noqoteen walaalo walaal mar walba caabi jiro ahaa inuu asaga ku markhaati fur uu aqoodo guuleed tusi aan dhaha mogtaa indhaha raac saas dheh saas uu leeyahay walaalkay guuleed aad iyo aaday u yartahay qof adoo kale in la helo aad iyo aaday u yartahay qof adoo kale in lala walaaloobo aad iyo aaday u yartahay qof adoo kale ninkaa walaalkaasa u garab qabato u garab istaagto inuu qof u garab qabto guuleed more than 100 times oo isoo wuxuu i weydiiyey oo igu dhahay walaalo maxaa u qaban karnaa wiilka lacagaa ku bixinaynaa sidaana ku bixinaa xaaladda wiilkan step by step u tusaay aan dhahay abow ninkan sariirtiis waa bilaash daawadiis waa bilaash wax kasta waa bilaash aniga kawarqabkayga caadi ba anaaba u ordaayo u kacayo wax adduunye iyo dan gooni u baahaya ma jirto walaalo usoo duceey waxa u ballan qaaday maalin walba markaa u tag inaa video gool ku tuso marka guuleed wix intaas dheer saa idiin sheegaayo walaalkay jiro jooga kuleeya guuleed dhammaanna dhalinyarada soomaaliyeedna adoo kale allah kaa dhigo aniga intiina badan iyo ammaanaysiin iyo dhehaysiin hebel waa garab istaagto waa yeeshay laakiin markii uu noolaa iyo markii uu geeriyoodoba nin la murgayo oo kabar qabane waa kana walaalkiina guuleed waay guuleed soo dhawow brother horta aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay arush waxaa qabatay hal habeen xataa ma qabanin sidaa u dadaashay hal habeen xataa ma u dadaalin wiilkan horta waxaa u qabatay ilaahay ajar weyn ilaahay kaasi waana kuu ducaynaynaa waana kaaga mahad celinaynaa sidaa asxaankaa samaysay ilaahay aakhiradaada iyo adduunkaada ilaahay kaasi tan kale aan codsanaya caawa waxaa waaye qof kasta oo Soomaali ah oo ninkaan taqaana qaxweyste maxamed waxaan ka baryayaa Soomaalida oo dhan oo meel kasta ay adduunka joogaan inay cafiyaan cafis in loo sameeyo qofkaan waa dhintay waa naga hooseeya caawa marka qof kasta ilaahay inuu u tuugo oo jannada ilaahay inuu ka waraabiyo haddii ay jirto qof oo wax ku leh maxamed qof haddii wax ay ku leedahay masadeen iyo wax kale caruush ha la soo xiriirto waxaan ka qaban karno waa ka qabanaynaa laakiin waxaan iga codsanayaa Soomaali weynay oo qolkan caawa 3,000 ku jirto please cafiya hana loo duceeyo wax kale ma iga rabno u duceeya murug xun ayaa nagu taagan Soomaalidu waxay dhahdaa qof aan aqoonin mase geeljire ayay geerida ku roontaa laakiin qofka markaa taqaanin oo walaal aan noqoteen oo si fiican isku taqaanin oo habeenii maalin isla xiriiri jirteen hadduu geeriyoodo it's not easy qofkaas wejigiisa ayaa kugu soo noqonaya marka hadalka xataa way dhibayaa marka waana waddanka waa ka maqanahay Dubai baa jooga marka waxaan iga baryayaa Soomaaliya please wiilka la cafiyo qof kastoo caawa qolkan ku jirto quraanka waxaa taqaanid oo akhriya halaasaan iga codsanaya wax kale codsi kale ma iga doonaya please hala cafiyo wana u duceeyo halaasaan ku sheegay guuleed abuu hal mar isug guuleed horta waxaa kuugu bishaareynaa ninkaas dadka 150 magacay u yaqaaniin dhalinyarada xaafadda la degnaa ase magaalada uu degnaa xaafadda uu degnaa la degneenna magac kale u yaqaaniin ninkaa magaciisa dadku waxay u yaqaaniin la degan asaga yaqaano juuq yar juuq qofka war juuq ma dhihi karti ilmaha maldhoo aamus juuq yar aamus juuq mal dhihi jirno waxay u taqaanaa dadka meeshiisa jooga juuq yar qof aana kula hadlaynin kiri ku dhehaynin kac ku dhehaynin haddaa indhaha u shidatad kaa tagaayo laakiin markuu meelihiisa kale iska joogo iska hadal kul wax dhahay hadday jirto maxamed qof wax u haysato waxay noqon kartaa keliya dad ay social media wax isku marsiiyeen qof oo muuqaalkiisa ka hadlay ama qof oo muuqaalkiisa soo qaaday ama qof oo wax dhaayay social media qof ay wax isku marsiiyeen noqon kartaa social media waa ku wada jirnaaye walaalkiin iska cafiyo qofkii dad badan ku xiran iyo qofkaan dad badan ku xirnaynba waa iswada ognahay waana la socotiin walaalkiin xaaladiisa step by step idinkugu soo gudbana iska cafiyo haddii ay jirto waddanka wax la joogo oo asaga deen ku leh oo dhahda deenaan ku leeyahane taleefonkii waa idiin furan yahay in allaale inta aa sheegatiin qof marxuun cid ka been abuuranaysa ma jirtee cid allaale ciddi deen ku sheegata waxay noqot anaa siinaay
arooshaan maraa qofki kaa dhacday ah brother caawa 3,000 4,000 qofooda ku fiirsanaysaa mas-uul buuxo caawa adiga iga ah mas-uul buuxo caawa adiga iga ah qofkii oo ilaahay ku og yahay oo wax ku yeesho walaalkeena maxamed anaga full responsibility qaadina waa hal siinayna cafiyo cafiskiis anaga only cafis aan u baahannahay masaakiinkaas hal cafiyo woo dhintay ilaaha u naxariisto qur-aanka ha loo akriyo qalbiga ha loo furo that's only aan weydiinana wax kale ma weydiinin please hal cafiyo jannada ilaaha ka waraabiya aamin guule dabo hadhowa ku soo waca sheekh axmed aa hadda soo saaraa okay sheekh axmed aa soo saaraa ciddii asaga uu wax ku leeyahane marxuun waaye ilmihiisaa nool ilmihiisaa agoon ah oo joogo midna waa 13 jir